أصحابتي السلام عليكم. sidoo yahay xalkiina ku soo dhawaada barnaamijka raashinka iyo cabitaanka waa nicmad xagga Alle nooga imaatay. Cunistii cabida waa caadooyinka nolol maalmeedkeena kuwaasoo aan ka maarmaynin hal daqiiqo ilaa ay nolosheena ka gasho khatar. wuxuuna islaamka noo jideeyay aadaab guud oo lagu laasimayo cabida iyo cunista. waxaana idinkugu imaanaynaa idinkaga sheekeyno maanta. aadaabta waxaa ka mid ah inaad cunto ma shay walba oo miiska saaran waa inaad cuntaa waxa aad jeceshahay oo kaliya. waxaa sunna ah inaad cuntid shayga kugu dhow adiga, mana aha in lagu ciyaaro cuntada sida Allah oo noo sheegay quraankiisa. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu dhahay: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ma aha inaan cunno cuntooyinka iyo waxyaabaha cabitaanka oo wasaqda ah. waxaana sax ahayn inaad ku neefsato weelkii aad biyaha ka cabaysay. waa inaan dhahnaa bismillaah inta aadan cunin amaadan cabin. waxaana ku duceysanaynaa ducadan soo socoto: Allahumma baarik lanaa fiih wad'imnaa khayran min. iyo intaadan cabin sharaabka waxaa dhehaysaa: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. haddii aan hilmaamno bisinka haddana aan ku jirno cunistii cabida waxaan dhahaynaa bismillaahi awwalahu wa aakhirah. waa inaan ku cunnaa oo nu ku cabnaa gacanta midig. waa inaan cunnaa waxa horteenna yaalo oo keliya, mana fiirinayna waxa geeskeena yaalo. haddii aan cabayno biyaha mana cabayno hal mar oo keliya, laakiin waxaan cabaynaa 2 mar ama 3 mar. haddii aan ka baxno cunistii cabida waxaan dhahaynaa alxamdulillaah, mana hilmaamayno inaan u duceyno qofkii noo soo diyaariyey cunnada. waxaana ugu duceynaynaa asiga: allaahumma adcim man adcamnaa wasqi man saqaanaa. waxaana ajiibaynaa sunnada nebiga sallallahu calayhi wasallam iyo siduu u cuni jiray iyo siduu u cabi jiray.